kulanti wacan daawadayaal kanaalkeena keenaanka nolosha waxaan kusoo gudbinaynaa dagaalka la sheegay in uu ka dhex qarxay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwoodii ugu caansan oo saacadihii lasoo dhaafay qabsaday baraha bulshada. Kooxo iyagu kala taageersan dowladda Soomaaliya kuwana mucaarad ay ku yihiin oo fanaaniinta Soomaaliyeed ah ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay ama saacadihii lasoo dhaafay qabsaday baraha bulshada. Dayaxdal Nuurshe oo difaacaya dowladnimada iyo sidoo kale kooxda waayaha cusub oo iyagu soo qaaday dhowaan hees mucaarad ah oo ka dhan ah dowladda Soomaaliya. Dayax ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray hadallo la yaab leh oo uu dowladda ku difaacayo kuna sheegayo in wax laga naxa ay tahay heesta la soo qaaday. Halka dhinaca iyo kooxda waayaha cusub ay iyagu ay soo qaadeen hees ka dhan ah dowladda Soomaaliya. Sida la wada ogsoon yahay xilliyadani markii la gaaro waxaa dhacda in la kala safto ama fanaaniintu ay u kala baxaan dhinaca iyo dowladda iyo sidoo kale mucaaradka. Dayax oo fanaan si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho ayaa hadalladaasi ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay.